xafladan muhiimadda ay leedahay waxay tahay waa maalin runtii aad iyo aad ugu weyn guud ahaan bulshooyinka aragga la dal iyo dibad meel walba ay joogaan adduunweynaha waa maalin caalami ah oo la xuso bil walba oo October sanad walba khamiisteeda labaad waxyaabaha looga hadlo waxaa ka mid ah sanad walba waxaa jira ujeedo guud oo loo asteeyay oo loo sameeyo sanadkaani theme-ka loogu talagalay wuxuu yahay eye care everywhere waa in maxaan ku dhahaa laga taxadaro xagga aragga meel walba waxyaabaha kale lagu soo qaato waxaa ka mid ah horumarada dadka aragga la guud ahaan ay gaareen hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada teknolojiyadda iyo guud ahaan macluumaadka quseeya dadka aragga la marka xafladan waxaa soo abaabulay oo qabanaya dugsiga indhoolayaasha albasiir ee ku yaala degmada Waaberi isaga oo la kaashanaya hay'adda adra iyo norad oo runtii kaalin weyn ka qaateen maalgelinta xafladan iyo xafiiska arrimaha naafada ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliya oo runtii kaalin weyn ka qaateen dhanka isku dabaridda iyo casuumaadda sidoo kale golaha naafada qaranka ayaa ayagana ka marneen marka guud ahaan muhiimadda iyo ujeedada xafladda laga leeyahay waa intaas in lagu soo bandhigo horumaradii la gaaray marka ma rabo inaan wax badan daldalmo ardayda way joogaan ayaga idinku soo talagalay riwaayado gabayo iyo geeraar iyo guud ahaan wixii kale ay ugu talagaleen xafladda waa dareemi karnaa xogaa daah baa jiray oo maxaan ku dhahay xafladda 2 saac ay bilaabatay ahayd laakiin madaxdii aan sugeynay iyo dadkii kale ee la casuumay marka waana soo gabagabeynaa sida ugu dhaqsiyaha badan hana loo dulqaato waa maalin maxaan ku dhahan u baahannahay in waqtigiina aad na siisaan ardaydana aad dhageysataan waxyaabaha ka dhex guuxaya maskaxdooda in aad dhagihiina ku maqashaan waxaa kale rabaa fursadan inaan uga faa'iideysto maadaama madaxdii dowladda federaalka ka mid ahayd ay joogaan waxaa jirta arday tiro badan oo aragga la dhigta dugsiga sare gaar ahaan fasalka afaraad form 4 oo sanadka soo socda loo baahan yahay in ay ka qalin jabiyaan ardayda kale ay la qalin jabiyaan oo ay klaaska form 4 ka baxaan waxyaabo badan oo waxaa jirta cilada oo ay ahaan lahayd dhanka imtixaanaadka kale welwel badan ka jiro in loo helo farti bareelka ah maadaama arday kale ay la fariisanayaan ma suuragelayso in oral looga qaado marka waxaan rabnaa in dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ay kaalin weyn ka qaadato madaxda maanta halkan la joogtana ay kaalin weyn ka qaataan in ay wasaaradda ku dhiirigeliyaan in loo helo imtixaan ku daabacan farta bareelka runtii anaga juhdi badan aan gelinay waxaan ku talagalnay maadaama wadankii uusan jirin weli system bareela in ardayda loo helo dhammaan maadooyinka 10ka ah ee ay dhigtaan in loo helo ayagoo bareela daawacad waa socotaa waxay ka socotaa wadanka Kenya qeyr Allah si agaasimaha arrimaha naafada ee madaxtooyada juhdi badan geliyay iyo waqti goordhow waxaan rajaynaynaa in ay soo gaaraan wadanka oo ardayda loo qeybiyo isla markaana ay la socdaan in casharadii bej la socdaan ama macalinka hadba meesha maray ayagana ay si taataabasho oo farta bareelka ay ku aqristaan laakiin in imtixaan midaysan la qaado oo farta bareelkana lagu soo daro dawladdu waa ku dhiirigelinayna gaar ahaan wasaaradda waxbarashada xildhibaanada iyo senataradana waxaa ka codsanaynaa iyo agaasimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha in wasaaradda waxbarashada lagu dhiirigeliyo in imtixaanka ay u soo daawacaan farta bareelka si ardayda aragga la aysan u baahanin oral looga qaado ama imtixaankii macalinka intuu soo hor fariisto ay maxaan ku dhahay su'aalihii afka laga weydiiyo waa dareemi kartiin warqad markii lagu siiyo waqti badan aad qaadan kartaa si fiican aad uga fikiri kartaa laakiin macallin markuu ku soo ag fariisto waqti badan ma ku siin karo marka dawladda in lagu challenge gareeyo gaar ahaan wasaaradda waxbarashada in imtixaanka farta bareel ahaan loo helo gudoomiyaha golaha naafada waxaa ka codsanaya inuu agaasimaha la shaqeeyo oo arrintaasi aad maxaan ku dhahaa loo dardargeliyo